markale aan ku celiyo odaygan Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya afka beesha sade kuma hadlaya maanta afka reer balad xaawo kuma hadlaya afka reer gobolka Gedo waxaan ku hadlayaa afka beesha sade qaadanayno ma yeelayno wax kasta haday dhacaan dhulkanaga lama qaadanahayo lama boobi karo ma yeelayno laga bilaabo saacadan maanta oo bisha Janaayo ay 6 tahay wixii ka dambeeyay cidii tagto oo cagaf geyso oo ciidan geyso wixii ka imaado mas'uul ayada kulan wacan wanaagsan ciyaarta qiimaha qadarinta mudan meel kasto dunida dacalada daafida aad ka joogtaan wacan wanaagsan waqti kasto idin tahay hadaba waxaan dul istaagi doonaa sida hordhaca soo aragteen muuqaalka xaaladda degmada Balad Xaawo gaar ahaan garoonka diyaaradda degmada Balad Xaawo halka uu marayo iyo sida ay wax u jiraan iyo sidoo kale odayaashan kana caabanayo garoonka diyaaradda degmada Balad Xaawo boosas ay ku lahaayeen halkaasi boosaskooda ay uu soo galay hadaba cabasho ay ka yihiin maamulka degmada Balad Xaawo waxaan isla gorfeen doonaa xaaladda guud ahaan ee degmada Balad Xaawo gaar ahaan garoonka halka uu marayo iyo sidoo kale sida ay wax u socdaan marka hore daawada soo dhawow janalka waa janalkaadii halka sida tooska aan uga daawanaysin waa barteen YouTube-ka Man Official haddii aad ku cusub tahay fadlan muuqaalka like saar subscribe dhaho si aad noqoto daawadaha koowaad markasta muuqaal aan soo dhigno halkaan si toos ah uga socdo waa hagaag hadaba sida hordhaca aad u aragteen muuqaalka ama title-ka aad ka aragteen waxaad aragteen odayaal Soomaaliyeed oo cabanayo maamulka degmada Balad Xaawo siibo maamulka degmada Balad Xaawo siibo ka cabanayo dhul ay leeyihiin oo xoog loo qaatay hadaba dhulka xoog miyaa loo qaatay mise maamulka degmada Balad Xaawo ayaa si kala wax u wado hadaba waxaan rabnaa inaan xaqiiqada rasmiga isla soo taawano waxaan ogeyn degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo in ay u baahneed garoon diyaaradeed waxaan ogeyn sida maamulka degmada Balad Xaawo loogu magacaabay wiilka dhalinyarta ah firfircoon la soo baxay dardar iyo sidoo kale inuu bulshadiisa wax u qabto Shira Cabdi Keenan waa gudoomiyaha degmada Balad Xaawo hadaba markii loo doortay waxaan ogeyn in isla markii waxyaalo fara badan oo gudoomiyaashii soo maray degmada ay qaban waayeen ku dhiiraday inuu qabto hadaba degmada Balad Xaawo waxa laga daafuray ama laga bilaabay sida aan wada ogeyn daawade garoon diyaaradeed hadaba waxaan ognahay wax bulshada dan guud u ah iyo sidoo kale dan shakhsi u ah hadaba garoonkaasi diyaaradaha ee degmada Balad Xaawo howshiisa la waday dardarta ku socotay ilaa ay hadda la joogo si dardar ah ku socoto hadaba in badan waxa ognahay garoonkaasi markii la daafuray ama garoonkaasi la bilaabay howshiisa waxa uu la kulmay caqabado fara badan caqabadahaas oo ah in uu ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii amniga ee degmada Balad Xaawo Cabdifataax Nuur Mataan waxaan ognahay caqabadooyin fara badan in ay ka soo mareen garoonka diyaaradda degmada Balad Xaawo hadaba waxaan wada ognahay dhulal fara badan oo halkaasi ay ku lahaayeen bulshada reer Balad Xaawo oo inta badan aan wada ognahay qof cabasho aan ka keensan inuusan jirin markii arkeen baahida loo qabo garoon diyaaradeed inta badan bulshada reer Balad Xaawo oo gob ah ayaa qof kasta oo booskiis halkaas uu soo galay waxay maamulka iyo sidoo kale ku dhiirigeliyeen shaqaalaha diyaaradda ka shaqeynaya isla garoonka diyaaradda ka shaqeynayo in ay shaqadii hore u socoto oo wax kasta oo agab kasta oo tabartooda ay tahay bulshada reer Balad Xaawo in ay garoonka ay la qabtaan wax yar ila daawo odaygan Soomaaliyeed dhulka uu sheeganayo cabirka uu yahay iyo inta dhul ay yihiin intaan ugu gudagelin warbixintooda dhameystiran isla muuqaalka fadlan daawada wax yar waxay la daawataan odaygan Soomaaliyeed oo dhahayo dhulkayga laga dhacay oo dhahayo bulshada reer Balad Xaawo ayaan kamid ahay maamulkayga dhacay hadaba dhulka ma hal boos ba ma laba boos ba ma saddex boos ba marka hore bal horte ila daawo sida uu hadli doono odaygan Soomaaliyeed iyo dhulka inta uu sheegan doono inta boos uu yahay waa noo sharci beeshii reer Galad haddaan nahay dhulkaas annaga iska leh 400 oo boos wey guda iyo dibad baa leh hagaag waxaan wada ognahay daawade 400 oo boos
horta qof kaliya ma yeesho 400 oo qoys haddii ay leeyihiin hataa qabiil dhan kaba soo wada qaad horta yaa wax loo qabanayaa bulshada reer balad xaawo horta yaa wax loo qabanayaa ma aragteen idin weydiiyo su'aasha ma aragteen qof kamid ah reer balad xaawo oo ka cabanayo dhulkiisii in laga qaatay wali intaadan horay u arag inta uu garoonkaas hawshiisa ay bilaabatay ilaa maanta aan joogno ma aragtay qof shakhsi ah oo reer balad xaawo oo ka cabanayo dhulkiisii in laga boobay waxaan ogahay aniga qaasatan waxaan ogahay inta qof oo booskooda halkaas iday ka galeen dhaheen